kani waa geel cunaya tiin sidaad arkaysaanba. tiinku waxa uu leeyahay qodxa aad u dhaadheer kaas oo uu afkiisa ku cunaya geelku. sidana arkaynaba waxa inuu muuqato inaanay wax dhib ku hayn qodxahaasi. geelu waxa uu la qabsaday xaalad adag oo lama degaan ah taas oo uga baahan inay cunaan dhirta qodxaha leh. geela afkiisa dhexdiisa waxaa ka soo baxa noocyo yar oo qaab kor ah oo loo yaqaan baabilya guud taas oo ay calaaliyaan. hadda sidaynu arkaynaba aad ayuu u rogayaa iyadoo qodxiina ay meesha ka buuxaan. wax dhibaato ah ay geelku ku qaban qodxahaasna ma jiraan. calaaliska iyo roogidda kadib waa ay liqayaan tiinka qodxaha leh ayadoo dhunta la marinayo ayadan la eegin raaxa darrada ka soo gaarayso dhuun marinta ama liqitaanka. sidaad arkaysaanba dhammaan wixii tiintiin ahaa waa ay dhammaysay geeshu.